لي صياما واطعم فقيرا يتيما نور قياما بنور القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالكسو دواذا مؤتمركii 13aad ee markiiska Tawfiiq Islamic Center Oslo Norway oo ay idin soo qabanqaabiyeen. maanta waa maalintii labaad, muxaadaradanina waa tii afaraad. ciwaankeeduna waxa weeyaan tacaal nu'minu saaca, kaalay aan rumayno saacad. waxaa inoo soo jeedinayaa sheekheena الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي السوفي، فليتفضل مشكورا ماجورا. الحمد لله نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال ربنا جل جلاله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال الله تبارك وتعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال ربنا جل جلاله: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا
ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده الميزان يخفض ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشف سبحات وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخواني وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. محاضرة عنوان كذو عنوان صحيحة: تعالوا نؤمن بربنا ساعة. وحي كسو سقناتي أما كسو واردي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الله مركي وحوغي فتورة أي دريمان إنay isku tirtirsiyaan, inay fadhiistaan oo ay rabbigood xusaan oo saacad khaasa lidikrillahi ka dhigaan, iyagoo marka horeba aan ghaafiliin ahayn oo aan rabbigood hilmaansanayn, ayaa haddana insaanku waa bani aadam ee cawaaliqda ku xidhan iyo umuurtiisa dunyawiga ah ayaa ilowsiinaysa waxyaalo badan oo markii hore uu xusuusnaa. markaasay odhan jireen: tacaalow nu'min birabbina saaca. maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahayna waxaa weeye in allah subxaanahu wa tacaala la xusuusto oo yacni mashaaqilka dunyawiga ah ee insaanka la soo gudboonaanaya ee in badan ilowsiinaya inuu qalbigiisa uu u tafaruqiyo lidikri illaahi awqaadda qaarkeed. waa sidii dhacday ama ku sugnaatay xadiidkii xandala radia allahu canhu. xandala kaana min aلصaxaabati اlkiraam. wuxuu dareemay markuu nebiga la joogo calayhi الsalaaةu wasalaam fii xalaqaati الdikri iyo markuu gurigiisa ku noqdo inay arrintiisu isbeddelayso. wuxuu is yidhi ama uu isku xukumay inuu munaafaqoobay. naafaqa xandala lafdigaasuu isticmaalay. abu bakr buu ku yidhi radia allahu canhu: ya abaa bakr, naafaqa xandala, ninkii xandala ahaa waa munaafaqoobay. oo maxaa dhacay? markaan nebiga la joogna calayhi الsalaaةu wasalaam yudakirunaa biاljannati waannaar, naar iyo janno uuna xusuusiyo, kaannaa ra'yi cayn, sidii annagoo aragnaa noqonaynaa. naartii iyo jannadii annagoo aragnoo kalea noqonaynaa. markaan reeraheennii ku noqofno wacaafasna alaswaaja waaldaycaat, bimacnaa khaaladnaa aan dheehno zawjaadkii iyo ciyaalkii iyo mashaaqilkoodii, nasiina kaiiran, in badan baan iloobaynaa oo wixii aan xusuusnay. marka tabadulka iyo isbeddelka qalbigiisa ku dhacay intaa yar ayuu wuxuu ka cabbiray inuu ku munaafaqoobay. abu bakr radia allahu canhu wuxuu yidhi: sidaasoo kale un baan aniguna ahay. nebigaa loo tegay calayhi الsalaaةu wasalaam. xandale wuxuu yidhi: yaa rasuula allah, naafaqa xandala. xandala ninkii la odhan jiray waa munaafaqoobay. wamaa daaka, maxay tahay arrintaas? wuxuu yidhi: yaa rasuula allah, nakuunu cindak, markaannu kula joogno, tudakirunaa biاljannati waannaar kaannaa ra'ya cayn, annagoo aragna. markaan reeraheennii ku noqonnona waa iloobaynaa in badan.
markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laba xaqiiqo uga warramay wuxuu yidhi low taduumuuna calaa maa antum calayhi cindii wafi اdikri lasaafaxatkum almalaa'ikatu fii turuqikum wacalaa furushikum sida agtayda aad ku tihiin haddaad daa'imi lahaydeen oo gurigiinna markaad joogtaan sida aad agtayda tihiin aad ahaan lahaydeen macnaha waxaad gaari lahaydeen kashfu alxijaab haybiyaadka idinka xijaaban baaba laydin kashfi lahaayo malaa'igtaabaa idin musaafaxayn lahayd idin salaami lahayd waddooyinkiinna iyo wacalaa furushikum sariirihiinna iyo furaashadiinna idinkoo jiifa ayay malaa'igtu idiin iman lahayd idin salaami lahayd walaakin yaa xandala saacatun wa saaca yacni saaca wa saaca saaca wa saaca waa qayb weeye يعني ساعة لذكر الله وللآخرة وساعة لمقتضيات الدنيا دي مقتضيات مشاكل كذا إنسان لو كلا قيبيه لكن أنا وقت كان هذا وحام وذننا نسوي دينه حنظل أرنت وكعب هذا يدبك وشاكتي يوحى مشغولي محي هايان قري سسمحو قتغي قري سمحو ككوبنا alaabta taalla maxay ahayd waxa uu ka sheegtay uu yiri qalbigaygii baa isbedelay oo isugu xukumay nifaaq gurigiisa maxay yeelay waxaan shaki lahayn gurigiisu telefisyon TV ma olin iPad ma olin jamiicu ay shaytaan الآيفون والآيباد والآي جالكسي والآيات كلها الشيطانية وحبك ما أقول حالا هذا نلقوا ابتلائي من ما أقول مغريات كان ملهيات كان ما أقول حتى حيالا جلع سنة ونفتيسة ما أقول قريه ذو حيسك أهايين قريه خشن وحنوجد أذق فراش كود وفراش أذق بوسكاها قل فدي قل جيفي قل عنت لقو عني قل فلان ما كلا لهين أحذر دم بهالقولن بوباها خير خلق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قل كي سواد مغاشين هل قل كليوها قل فدي قل جيفي مجرين كاون بالا سحلا كاون با عنت لقو عنا حتى جوجوش نفتر كذا لقو سحنا يوا هلقو سجا أي فراشة سجا أي هذا مرتين تمادنا اللود دقيا haddii cunto la cunayo isagaa lagu dul cunayo ma fi shay mataacu dunya intaasay ka ahayd iyadoo mataacu dunya halka ay ka taagan tahay ay haddana ka sheegteen oo ay dhahan wayna mashquulisay oo dikriga ilaahay bay naga mashquulisay fakayfa nahnu marka waa u baahannahay saaca kaliya ma aha saacaad fara badan baan u baahannahay ayaaman wa layaali inaanu aalaadka iyo qalabka iyo waxa iska xidhno oon ilaahay dartiisa isaga baxno oonu ka dhex baxno adduunyadan iyo wakhtigeeda iyo qurunkeeda oo quluubteenna aanu u jeedinno ila Allah baan u baahannahay xaqiiqatan zaman waxaan joognaa khalwatu al-abdi ma'a rabbih ay daruura noqotay inuu rabbigiis khalwa la yeesho in yaroo wehele uu ilaahay la yeesho oo dikrigiisa uu dhadhansado oo quraanku uu macaanaado الحسن البصري رحمه الله وحال لغا شيغay wuxuu yiri saddex meelood macaan ka daydaya wuxuu yiri macaanka saddex meelood ka raadiya salaada macaan ka daydaya quraanka marka akhriyaysaana macaan ha laga daydayo dhikriga ilaahay ee aan quraanka ahayn sida tasbiixda iyo tahliilka iyo kada iyo isagana macaan ha laga raadiyo shakal aan macaanka umuusan jeedin macaankan aan naqaano oo carabka lagu dhadhamiyo ee xalwada iyo keega iyo alaabtaas ma ahan shaqo kuma lahayn macaanka lagu jeedo macaanku Hasan al-Basri rahimahullah ka hadlayay waa macaan qalbiya wuxuu yiri haddaad saddexda meelood macaan ka weydaan haddaad heshaan buu yiri haddaad heshaan fa in wajadtumuhu macnaha waa fiicantiin waa وإلا هداد معانك ويدان صدح ذاس ميلود معانك ويدان فالباب مغلق الباب كويدي كحرين هاي وقاذا تلو الباب كوجد كواي
باب كوجد وباب الأنس بالله، باب الأنس بالله. الله رب العالمين باب كوهشدي سوي إن إلهي وهشته إلهي وهل نقطه وذكر جيسة يحسوس تيسة أذو حسوته ما هو حسيسنها لا إله إلا الله. صلاة باتكتي صلاة بعد معان لندن ستي معان كيف أكوسي لدمية تي كلام مسوي كرتي قور ما صلاة دي كلا أنقاري دونا وربي ألم مناجون دونا فرائد كيف بعد ماذي شنتي فرض بعد ماذي قريه بالوه يدي نول بابا ماشي يسيبو يهوي يسيبو قلي حبيب والبحبيب كي يسيبو خالي لا نقضي ولكن قلبه مع الله. معان كيف أوصل لما يو صلاة الليل بو يستاغي فقام طول الليل يتململ إلى ربه سبحانه وتعالى. أرنمها سانقمقا هذا هو المطلوب. مركا حقيقة قلوبتين وحيوبها انتهي يعني في هذا الزمن زمن المغريات والملهيات والمبعدات عن الله عز وجل خلاوي بدن فربضن سقلبي لو علاجيو معان كاس لو سو عشدو oo salaadii ay ku dhadhanto oo aad xusuusato inaad rabbiga hor taagan tahay. ninba ay weydiiyay su'aal wuxuu yiri maxaa marka imaamku xoogay dheereeyo salaada aan u kahana oo u nacnaa marka isagu waa daabit sarkaal askari oo wasaaradda daakhiliga ka shaqeeyo weey meesha aan fadhinaana waa xafiis su'aashu iska kay weydiiyay aniguna su'aashiisii su'aal kale aan ugu jawaabay waxaan adigu haddii hadda daabit baa tahay halkaad ka shaqaysaa haddii wasiiru daakhiliya haddii uu caawa kuu yeero oo lagu yidhaha ballan baa lagu sameeyey waxaa ku raba wasiiru daakhiliya inaad la kulanto 12 habeenimo ما تجي لهيد مش واحد لهيد والله وقت دنبواية حرمي وتجي لها وزير الداخلية كيف سين وتجي هذا طيب مركا تكتي وزيرك هذا كاير مشغولة وحوجي بنان كان لقوا يرستاجي لقوا فريسي ماشي لقوا سوق مديد ما هو سوق لها هاي مركا هور فريستي وزير كل شيء كيسن يسن ساعة ميات فيرن لهيد مر بودرون لهيد ونقول لي هذا الكلام ما يقول والله يعني حقيقة ندان كاغا ورما ما وحين كاس مركا وزيرك وي فكيف أميرك هادو كويا لا أميرك ودن كان كوغو سريا ليلا قدر ماشي نشوف أميرك هادي كويا كور تا اسكبر داف بيقول أميرك يعني هذه أمنيتي إذا بواي سان كويا لها هذه لو أميرك وقت اللبية توانكا كو ذهب إنما كهر مهليس واتقي لها ليش بان المحجرة هذا هو الأمير وحن أنا كل شيء سببت مركز إلهي هرتيسة أد استاكتو أو كل ديرانيو لهذا الكإلهي لكن أمير كهرتيسو هذا الكل ديراني إن كل شيء لأنه حقيقة سنتهي أمير كأما مدحوينها نهرت هذا الجوجا إنه حاجات كأقولن كوجودي كرو وحاضر بهانتهاي نأتكهلي كرتو وحيالها تي حسوسا نيسا إمي سأرين بانكر لما يستا لأنه ودن كردن بو أتليا وزارة كستيساق حكومة حاجوين كمركة وزاروين كإيا كاقا حنحران إنو كو حلين كرو أيا دارين سنتهاي مركزاس أوجد وقت كستها النقطة ديار بعضهم تهاي إنا قابشو وقتها وكولا فريستنا وتكون عن سنة يسا وجعلان يسا الله سيفرد وسحوي تنقم مقن الله نهي واتاس مع الله إلهي وهرتا قلنا لكن إنه حاجات كنا نوجد كرمية يقين سنين صلاتي وقالينا الله أكبر قلبي أننا نحكو رجال يساهبل يهبل طلب وحمقوق بنيان رب العالمين بثرتا قنتاي مخلوقات كانوا لن تحت قبضته أسقى وضع حكومة وقرده أمرده أدون كرنبا في قبضته
yafcalu maa yashaa marka haddaad og tahay yaqiinan dhab ahaan in addoon ilaahay aad tahay rabbigaa markaad hor taagan tahayna xaajadaada uu isagu kuu gudayo ilaahayna si dhaba uu qalbigaaga arrintaa uga daalacdo waxa waaye maadan dherarsateen waa ku macaansan lahayd dikrigiisa marka taa allahna waafajiya ikhwaani walaalayaal fi hadihi daqaa'iq almacduuda waxaan xusuusinaynaa rabbigeen jalla jalaaluhu allahu aladii laa ilaaha illaa hu allah aan ilaah kala jirin rabbu hada alkowni huwa allah saxiix ilaahay annagu indhaha kama aragno adduunka intaan joogno in shaa allahu fi alaakhirati waan arki doonnaa walaakiin ilaahay jalla jalaaluhu aayadihiisa kowniga ah iyo cajaa'iba qudradiisa uuna tusay waxay nagaga filan tahay inaan ku yaqiinsanno yaqiin dhab ahoo jaazima in rabbigeen uu jiro inuu waaxid yahay laa shariika lahu dadka caqligooda ma siinayo mana oggolaanayaan waxyaalahan ay samaystaan ee farsamaystaan waxbaa iska samaysmay saanic la'aan ma oggola sidii ninkii finlandiga ahaa doonta dhexdeeda annagoo salaad ku jirna noo yimid ee bacda salaaddii markaan ka baxnay inuu nawaaniye isku keendayey ee yidhi wax jiraa ma jireen maxaad u sujuudaysaan ma idinka ugu sarraysaan adduunka ilaah baan rabbigan baan caabudaynaa baan marka wuxuu yidhi cilmiga iyo waxana dadku wax adduunka lagu gaadhaya wax jiraa ma jiraan su'aal wajiihoo sahalahoo cid kaste iska garanaysa in badanna idinku soo warwareegay baan weydiiyey waxaan doontaan intaan la eg ee ilaa 12 dabaq ah ee kumaan kun qurfo iyo qolal ku yaallaan oo boqolaal ama kumaan kun baabuur qahadaysa doontan sidan ah ma kaa dhaadhici kartaa baan idhi inay iska samaysmatay horta imisay qaadatay baan idhi in badan baa la dhisay buui waxaan subaxun baa dadku soo toosay iyadoo iska taagan ma rumaysan lahayd mayu yidhi arrintaa ma rumaysan kartid maya ma rumaysan karo waa in la sameeyey waxaad rabtaa haddaba aniga inaad iga dhaadhiciso koonkan adduunkan sidaan isaga samaysmay ee sidan u dhisan dhulkan iyo cirkan iyo qorraxdan aan weligeed ilbiriqsi wakhtigeedii ka soo hormarin ka soo dabamarin waa iska samaysmeen masaasaad iga dhaadhicin kartaa waxaan ogahay baan idhi adiga caloosha hooyada markaad ku jirtay adise caloosha hooyada caloosheedaad ka soo baxday soo ma ahaa waxaana intay hooyada caloosha ay kugu haysay intii ka horraysay caana mayna lahayn mar alla markaad caloosheeda ka soo baxday bannaanka u soo baxday ayaanaase hooyada caana kaaga yimaadeen yaa isku beegay baan idhi wakhtiga adiga aad soo baxday iyo caanahaas yaa isku wakhti ka dhigay leesh maxay horey caano ugu yeelan weyse waxaa idhi rabbiga saas kuu tarbiyeeyey wuxuu ogaa inaadan ilka lahayn bariis iyo cunto iyo rooti aadan cuni karin marka raxmatan iyo tarbiyo uu ku barbaarinayo ayuu caanahaas kuu soo saaray mar alla marka adiga soo baxday hada huwa arabb subxaanahu rabbigaas waaye adiga waxaan uga hadlay aayaadkaas kownigaan uga hadlay isla markii wuxuu yidhi waan ogahay buu yidhi inay jirto awood dadka ka sarraysa inay jirto laakiin shardi maaha yani hadalkii shardi maaha inuusan ilaahay ahayn waxaan xusuustay fainahum laa yukadibuunaka walaakina alظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun awood dadka ka sarraysa inay jirta ayuu qiray laakiin inuu ilaah yahay ma oggola yajxad allah caza wajal marka lilaahi alxamdu walminna walaalayaal rabbiga aan rumaysannahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu nicmeeyey nicmat aliimaani waalislaam aan xusuusanno min khilaali ayaadihi wa nicamihi nicamkiisa kow waxaa ka ah adiga abuuritaankaaga inaad xusuusato sidaad ku bilaabatay li'anna taasaa in badan isku kaaxidhaysa adiga iyo isma rabb
rabbiga kan wax barbaariyey huwa rabbuka alladii rabbaak adoon jirin kan ku ahaysiiyey kunta laa shay ma aadan jirin insaan wax la yidhaaho madkuur ma ahayn maba xusnaynba biraxmatihi wa ixsaanihi isagoon cidna waraysanin cidna ka dalbin ayaa ilaahay uu go'aamiyey oo gooyey in makhluuq insaan la yidhaha la abuuro silsilo dheer bay ahayd laakiin adiga waxaa dhammaadkaagu noqday in ilaahay uu ka bilaabay kulan hooyada iyo aabbaha ay kulmeen in nudfa mumtasija bayna maa'i abiika wa ummik ilaahay kaa soo saaray innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiira nudfadaas inuu ilaahay kaa abuuray kow maraaxil aad soo martay aad ahayd calaqa daman mutajammidan caaliqan fi jidaari dhiig la guntan baad ahayd ninkaagan weyne hadda ma aragtay wax ismoodaya inaad dhiig baad ahayd yowm min alayaam ka bacdi mudqaad ahayd gabal yaroo hiliba haddana cidaam baa ilaahay kaaga sameeyey kuu sameeyey waa lafahaagan la isku tarkiibiyey ee lafuhu hal laf ilaahay kama wada dhigin hal laf haddii laga wada dhigi lahaa dhibaato weyn bay noqon lahayd maadan fadhiisan kareen maadan sican kareen waxaan wada laalaabmaya ee jirkaaga ah laga bilaabo hadda gacmaha aan anigu hadda wax ku fidfidinayo faraha aan marna laabayo marna kala fidinayo imise xubneed way ka kooban yihiin xubin walba xubinta kale maadda lasija oo dhareer ah oo kala ilaalisa inay lafahaasi isxoqaan baa ilaahay u dhaxaysiiyey biraxmatihi wa ixsaanihi waa marka la leeyahay jilbihii dhaacaankii baa ka dhammaaday oo way isxoqayaan jilbaha kaliya kuma jiraan 360 xubin oo isku rakiban baa ilaahay lafahaaga ka dhigay mafaasil ah oo maaddadaasi u wada dhaxaysa qolooyinkan oo ka adibada iyo caafimaadka dhabarka ka shaqeeya lafdhabarka in badanna waa laydiin sheegaan u malaynaya faqaraat baa la yidhaha fi luga alcarabiya faqaraat saasay isu haystaan laba faqro labadii lafba maaddaa ilaahay u dhexaysiiyey rabar oo kale ah oo kala ilaalinaysa oo keeni karta markii qofku uu fadhiisto ama uu inxinaa sameeyo ama dhabarkiisa soo laabo laalaabkii aqbalaysa markii cilladii ku timaado ama khushuuna ay gasho kaasaa meeshii intuu ka yarbaxo ayuu casabkii iyo ma garanaysaa xididadii taabanaya xanuunku halkaasuu ka imanaya si lagu dareensiiyo nicmada ilaahay uu ku siiyey subxaanahu jalla jalaaluhu lafahaas murakabka ah ee tarkiibka cajiibta ah leh baa iyagoo yaryar ilaahay calooshooyadaa ku abuuray waa bisuncihi weeye subxaanahu wa tacaala adduunyada maanta waxaa la sameeyaa farsamo badan farsamooyinkaasaa in badan dadka ilaahay ku fidneeyey fidnay u noqotay faidaa masa alinsaanu durun dacaana faidaa masa alinsaana durun dacaana ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ويكفي ذنوبين إن يوح كستسيطرين بوهاجتا بينما شيء مجدكم أبوكم سمين كران وإن كشف هذه للوين لو افتيم يصل له أركو الله جل جلاله إنسان كان سدح مجد هوستود أيوكو أبوري أو كسمي markuu dhammaystiray rabbigaa abuuritaankeenna markuu noo dhammaystiray nolol buuna siiyey meesha uu nagu noolaysiiyey waa meel bannaanka laguma noolaan karo waa meeshaad aragteen ee cidhiidhiga ah dabadeedna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo dureeriyey risqi min cindihi afka ilaa waxba kama cuuni kareen caloosha hooyada mindhicirkeeda iyo xuduntaada ilaahay isku xidhay halkaasaa quudka lagu soo marin jiray oo aad ka quudan jirtay iyo cunto ka qaadan jirtay bitadbiir min allah rabbuka aladii rabbaak muddo markii aad caloosha hooyadaa ku jirtay ee wakhtigii lagugu talagalay kuu dhammaatay aqlabkeeda waa 9 bilood way ka yaraan kartaa way ka yar badnaan kartaa
ayaa ilaahay bannaanka kuu soo fasaxay waa lagu soo daayey mamlakadii ilaahay baa timid adigoon dalbin baasaboor soo qaadanin fiisa lagaa dalbin adkhalaka ilaa mulkihi yaa subxaana allah mar kasta waa xusuustaa shalay baa ugu dambayso markaan eraboorka halkan ka soo degay oo gabarh meesha fadhidaa ay baasaboorka iga qaaday aad bay u fiirfiirisay fiisada inay sax tahay inayna sax ahayn su'aalo badan igu weydiisay hadda ka hor meeshan ma timid maxaad doonaysaa ayaad u socotaa markay ogaatay wax kasta inay sax yihiin ayay tihi tafadal waxaan xusuustay ilaahay inuu adduunka mamlakadiisa isoo geliyey bilaa baasaboor bilaa su'aal bilaa fiisa mamlakatu rabbi alcaalamiin bilaa fiisa cid fiisa soo qaadatay maa jirta weli ilaahay ma ku mahadiso ma tiri yaa rabbi laka alxamd inaad i keentay mamlakadaada iyo boqortooyadaada bilaa baasaboor oo bilaa fiisa mise ma xusuusnin arrintaa oo ay lowsannahay mar alla markaa caloosha hooyada in aan ka soo baxnayna tarbiye khaasaa bilaabatay oo kow ka tahay mar alla markii ilaahay uu ku keenay fi dunya maa kaana cindaka alasnaan ilka maad lahayn cuntadii reer ku karsadeen ma cuni kartid allah subxaanahu wa tacaala caanuu kuu diyaariyey oo isla markaad soo baxday laabta hooyadaa lagaaga soo saaray waa min suncihi waxdahu laa shariika lahu ilaahay baa kugu barbaarinaya wa huwa rabbaak shay-an fa shay-an marka awal mabda' lidikri illaahi iyo xusuusta ilaahay halkaa waa inay ka bilaabato addoonku bidaayadiisa hadduuna xusuusanin addoonnimadiisa markaa ma qirayo daacadiisana istiqaamo yeelan mayso waa inuu xusuustaa mansib kasta gaadh maamul kasta gaadh maal kasta yeelo haddaadan xusuusanin bidaayadaadu siday ahayd iyo taagdarrada iyo miskiinnimada aad xaalkaagu uu ahaa waxaa weeye laa tastaqiimu طaacatuk hadalkayga waadix ma yahay anigu qamqam baan maqlayahay may maqlaysaan odayaasha kullu shay tamaam allahuma asmicna min cindik in allaha yusmicu man yashaa waxaan kaloo walaalayaal xusuusanaynaa yacni bidaayadu sidaasay ahayd baahidana insaankuna fii kulli waqt kan daboola waa allah caloosha hooyada markaad ku jirtay waxaad u baahnayd kan ku siiyey waa ilaahay jalla jalaaluhu markaad ka soo baxday ee cuntada dadka waaweyn ee cunaan aadan cuni karin kan caanaha ku siiyey waa allah rabbulcaalamiin marka aad weynaatay ee aad ma garanaysaa cuntadii dadka ay cuni lahaayeen ilkuu kuu soo saaray ilkahan markii dhakhaatiirta ilkaha la weydiiyey maxay ka samaysan yihiin waxay ka samaysan yihiin maaddo ka adag lafaha waa maaddo laf ma aha lafta way u eg yihiin laakiin laf ma aha way ka sii adag yihiin markaasaa laga dhigay aqsaam iyo qaybo waxaa ilaahay kaaga dhigay hanaaya oo waa foolasha waxbaa lagu goostaa qaybo waa anyaab waa lilkasr waxyaalo adag yaa lagu burburiyaa qaybana waa gawsaha weeyaan oo waxaa loogu talagalay in lagu calaanjiyo cuntada marka cuntadii raashinkii sideeda inta badan ma qoyan hadday qoyan tahayna qoyaankeedu uu yar yahay isla marka afka aad saarto baa ilaahay wuxuu kuu sameeyey lucaab ama dhareer baa markiiba soo baxaya oo macnawi ahoo calaaqa leh maskaxda iyo waxyaalo iswada shaqaynaya dhareerkaasaa isla markii cuntadii kuu qoynaya dad baa cudur ku dhacaa oo dhareerkaas iyo lucaabkaa waaya dhibaatada ay kala kulmaan iyagoon baa sheegi karaa aduu hadda ma dareensanid mana ogid laakiin qofku marka dhacaankaas iyo qoyaanka iyo candhuufta afkiisa uu ka waayo dhibaatooyin fara badan baa la soo gudboonaanaya nin baa beri ii sheegtay oo ii sheegay oo yidhi cudurkaasaa igu dhacay ee ii duce aniguna waa iska weydiiyey waxaan idhi maxay kuu taraysaa candhuufta carabkiisuu soo saaray yani markaasuu ku xoqay gacantiisa saa in yaroo dhibicoo qoyaana ma leh wuxuu yidhi adiga hadda markaad cunayso cuntada adoo ku macaansanaya ad iska cuntaa
aniguse waxaan u cunaa buu yidhi sida kiniinkoo kale in yaroo beriis haddaan qaato waa inaan bakeeri biyo ah ka dabageeyaa ileen dhaacaankii soo baxayey ee cuntada qoynaya ma leh haddana waxani waa filter oo afkan iyo waxyaalahan iska xidhan iyo cuntadan meesha maraysa iyo rawaa'ix kariiha ayay keenaysaa waxaa ka baabi'inaya dhaacaankaas qofka markaa dhaacaankaa hadduu waayo waxaasoo dhan baa isla uraya nicmadaas ilaahay ma ogtahay anta laa tadkuruha ma ogid waa ilowsan tahay wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha inta adiga keliya nicamka ilaahay uu ku siiyey yaa koobi karaa dhakhtar baa waxaa lagu leeyahay 30 sanuu baranayay indhaha 30 sano ayuu wuxuu baranayay sida indhaha loo daaweeyo hadday cudur ku timaado ama wax cilla ku timaado adigana way iska wadataa yaa kuu sameeyey allah rabbulcaalamiina kuu sameeyey min shaxmin walaxmin buu ka sameeyey manaaficdeeda yaa koobi karaa qiimaheeda intee waaye hal ilna sii oo lacag fara badan ha lagu siiyo ma yeelaysid dhulka muggiisoo dahaba qaado oo labada indhood iska keen ma yeelaysid labada indhood baan dhahaa ixtiyaadan leanna beri baan waxaan idhi ma ogtahay hal il keen oo dhulka muggiisoo dahaba qaada haddii lagu yidhaa ma yeesheen baan dhallinyaro ku idhi mid baa yidhi anigaa yeeli lahaa hal il hadday tahay waa iska yeeli lahaa buu yidhi oo maxaad ku samayn leedahay lacagtaan reerkii u diri lahaa buu yidhi soomaalidu waa fiican yihiin dadkooday had iyo goor ka fikirayaan waxaan idhi labada indhood ma yeelayu yidhi laakiin hal il keliya hadday tahay waa iska oggolaan lahaa buu yidhi oo dhulka muggiisoo lacag aan helayn hama oggolaan lahaydin idinka dadka meesha fadhiya qaar iska yeeli laha waa jira hal il laakiin labada indhood qof oggola ma jiro ninkaana kowkaa miyaha allahu akbar hadihi nicmat ullah ilaahay waxaasoo nicmo aana siiyey inaan ku xusuusanno oonu ku shukrino ayaa lanaga doonayaa كذلك السمع كذلك البصر كذلك سائر النعم إلهي وأنا وذا حسوسنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون عقلك إن نوقف إذا سنو إن ربك أنكو حسوسا نوين إن لوقف إذا استكلية إن حاجات كاغا حيوانك أكلية كو أديك ستماها عقلك وإن ربك كو حدا وإلا فلا عقل لك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون عقل أن ربك كدنيسين أرق أن ربك كتسن مقل أن ربك كمقشين هذا الكيس فليس بعقل وليس بسمع وليس ببصر إلهي كوها نقبت باديو إلهي عقل إيا سمعي يا بصر isaga noo dhaweeya Allah nasiyo ikhwani waxa muhiim ah inaan xusuusano aydan ad-dar al-akhirah wa meesha aanu ku dhamaanayno wa liqaa Allah azza wa jalla wa ilahi kulankiisa wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawm al-khuruj insaanka adduunku intuu doono ha noolaado laakiin maalin baa imanaysa ama habeen uu dhimanayo dhimashaduna dhamaasho ma aha naftan markii horeba isagu isma gelin hooyadiisna ma gelin mulxidiinta iyo gaalada idinla jooga beentood way ha ka dhagaysanina markay ku leeyihiin hooyaday baa ay abuurtay hooyo waxba ma abuurto mid baa saas yidhi yaa ku abuuray baan idhi hooyaday baa ay abuurtay samaysay war hooyada caloosheeda intay gacanta gelisay miyay ku farsamaysay adeeg hooyo waxba ma abuurto alkhaaliqu huwa allah marka kii ku abuuray ee nafta ku siiyey
ويكن نفت هذا أوفسن دونا الله هو الذي يتوفاكم إنسان كان مركا أنتو دونا بهالنولادو عالم كلا أيا وبالله بنيا موتكو أما دمشقوا دمشق معها وانتقال من دار إلى دار الآخرة تجيا إنسانكم ولقيه إلهي وي سبحانه وتعالى ولا كل ملها ما شيء كبل الله بنا إنسان وادم مشهد لمشهد الموت وما بعده غيب نجيه هذا يعني فرسمة إيو تكنولوجيا إيو هرمرك إيو ضمن عالم كان أجوكتان وحلقوا تصنيفية أما لقوا الماما وحل لها الدولة ده كوبات كوا مالها أنكرنا بديه وطن كإن سومالي يكون جوجنا وحل العالم كالسدحات سوسيدا اسمع سوقيبتها المجر عالم ككوبات عالم كالسدحات يمشي الجند في جوجانه مال دمشق اللي جوجي ما مغشين مال اللي يروح على جاري إن دمشق اللي جوجي أو ضد كل من بيان ما مغشين هذا كوربا وحكوا له هدي أي جرتم مال ساسا إيش يا جوان تجيا مش أسان تجيا أما سيدا لحظان ونسكدي بيا أسكن هناك هدي اللي يرمل دمشق اللي جوجي باجرته ما جرتوا بيا ما في لما نجوج نكرم كل مدعم بلوية هي كل وحلوية هي يعني خاضع أمرك إلهي ولا وضقاتي عدي ذكرتنا مله إن لا دمنايو دختر نمدي يوم قرنيسا عافماتك مل سرى إنسانكم أنت كجاري أو حيالها أي سميان أما فرسمدان حق عافماتك يعني هرمر حق للجاري لكن دمشق أنت هربا كسب بدن ثاني وحيرني كشكيني وحير دخترك أصلاً وحالله سمية اسمثال كالورد ساعة إن دمشق لقى جهر تقول لكن ما يشاء وبدن لقول أنت ودختر هذا قريها أنت بدل لقمة أنت دخترك لقول أنت يعني دخترك لقول تلقى لي إن دمشق لقى جهر تقول ما يشاء وبدن إدتك كل إنسان ما تهم يسماه عالم الغيب كده شقية دمشق واحد إنسان وشقة كله معها ملائكة بسود دقيقة شدتكم ما أركان جركي إنسان كان معالجين يا روح ذي بلقسي بيا لكن دتكم وحبك ما قبن كران تحدي بقى إلهي سميه فلولا إن كنتم غير فلولا إذا بلغت الحلقوم حلقوم هالكاواي مركي النفتو هالكا سو قادو جرك أنت سيكلك سو بحضو وأنتم حينئذ تنظرون ودركتان والذي كما ضفنوا إنسان كان تلقاتي بوره لقما تورين هرتينا أيها نفتي لقا بحنيا وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم أنك إذن كدو ولكن لا تبصرون وحب ما ركتان وغيب لذيك قريب فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هذا ترون كل شيء إنسان إن إنسان بعثي وسنجرين وهذا اللي كان أديدهن وديدهن نولل بعد ما شهد كذا بيس هذا رون كل شيء إنسان حتى بعليا نفتا بحيسا معلين كرتان وامايا ما تستطيعون مركا ساس أوجد إنسان كي نفتي مركي لقى بحيو جثة حامدة ونقضه ولا آسيا هذه لا آسي أو لقيتكي أنت آن دتكو كدقاقن إلهي سبحانه وتعالى الروح ذي سي وكسو علينا بقدرته دتك بحوير النبي عليه الصلاة والسلام دشي سج مرية شنقد وحكى الإسكار في لجوه ده مركا أي سعدان قرع نعالهم بمقليا أيوه مقليا إنسان كاس وبقدرة الله تعالى لكن وعالم غيب نجاه نجو ما رجناه ملائك باقفك وإيمان يسوى لو يدينيا صدح سؤال أو أباهن هذا إن أتكفي كرته أنت هذا الله كل من أيها لو يدينيا منكر ونكير يكويدينيا من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم منعها امتحان هذا أنت أذكرك كسي قيبته أدبرك جوابش وكل بسيط أضر غنتوي فعلا ربك الله معها في هذه الدنيا ربي ما كدغتي سغون ما ديع جرتي سغا ما كحدنيد
awaamirtiisa ma qaadan jirtay diintaadu diin alislaam ma ahayd nebiguna sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqiisii ma raacday hadday jawaabtu nacam tahay fataquulu nacam baad odhanaysaa kadib caalam alqubuur iyo caalam albarzakh markuu dhammaadana yowma alqiyaama ayaa yaxshuru allahu alawaliina waalaakhiriin laysu keeni doonaa wa anta waaxidun minhum qof la iloobayaa male qof laga tegayaa male dadka qubuurtooday ka soo wada bixi doonaan iyagoo qaawanoon dhar lahayn iyagoo oon kaba qabin iyagoo oo mid wax haystaa aan jirin muxuu haystaaba hadduu wax helayo dhar buu ku iibsan lahaa meel dhar laga iibsadana ma leh meel dhar aad ka helaysana ma leh qof ku asturi kara cawradaadana ma leh ila allah iyo camal saalixood hormarsatay maalintaa dad baa dhar la siinayaa dadkaa waxaa kow ka ah ambiyadii kowna waxaa u ah ibraahim calayhi الsalaam alaa waina أwala alkhalqi yugsaa yowma alqiyaamati ibraahimu calayhi الsalaam waxaa ku jira dadkaa dharka la siinayo oo weliba taaj madaxa loo saarayo aabbaha iyo hooyada ilmahooda qur'aanka bara ikraaman lahum dadkii yowma alqiyaamo wada qaaqaawan iyaga dhar baa la siin weliba dhar jannada laga keenay baa la siin taajna madaxa loo saari maxay ku heleen waa biakhdi waladihimaa alqur'aan waladkooda ama gabadhooda gabadhii ay dhashay ama wiilkii ay dhalay oo qur'aanka bartay awgeed baa ilaahay ku ikraamaya leanna ilaahay qur'aanka wuxuu ka jecel yahay male waa kalaamuhu marka maalintaasaa naga wada dambaysa yowma alqiyaama ee qofka intuuna ilaahayba la kulmin isagoo qabrigiisii ka soo baxay dhar jannada looga keenay iyo taaj madaxa loo saaray ee uu isku ogyahay hadduu ilaahay u tago in loo naxariisanayo marka maalintaa maalin cadiima waaye dadkuna kurbadu meel weyn bay ka gaadhaysaa ilaahayna ballan buu qaado wuxuu yidhi waina yowman cinda rabbika kaalfi sanatin mima tacudduun 1,000 sano intaad ka tirsataan 1,000 sano maalin 2 maalin 3 maalin 100 maalin 1,000 maalin 1,000 sano iyo maalintaasaa isu dhigantuu ilaahay yidhi subxaanahu jalla jalaaluhu dadkuna kurbo weyn bay yay la kulmayaan nebiyadii bay shafeeco ka dalbayaan inay ilaahay u weyddiiyaan inuu fasliga iyo dadka kala saaridooda soo dedejiyo ilaa waa laga aamusay 1,000 sano laga aamusan yahay ka warran oon biyo bakeeri biyana lagu siin oo qorraxda intaa lagu soo dhoweeyey meel adag bay ka gaadhay dadka hadday dhimasho jirto waa la dhiman lahaa laakiin dhimashona waa la mamnuucay marka waa kuway nebiyadii nebi ka soo bilaabeen aadam mid walba markay u tagaan nebi kasta wuxuu yidhaa maanta rabbigeen wuxuu u carooday caro uusan weligiis caroonin hadda ka horna tan oo kale caroon doonin aniga marka ilaahay uma tegi karee hebel u taga nuux bay u tageen nuux sidanaa tahay awal rasuul baa tahay samaaka allahu cabdan shakuura noo shafeeco qaad oo ilaahay noo weyddiiye wuxuu yidhi anigu hal dacwaan lahaa ducaan lahaa ducadaydiina qoomkaygaan ku habaaree anigu ilaahay maanta u tegi maaye u taga ibraahim ibraahim calayhi الsalaam waa la ammaanay khaliiluraxmaan baa tahay wuxuu yidhi anigu 3 goor baan been sheegayoo ilaahay maanta wuu cadhaysan yahayoo hortiisa ma istaagi karo 3 been buu sheegtay been ma maqasheen 3daa been waxay tahay haddaad maqasheen waa maqasheen haddaad maqalin waa haddaan idiin sheegaya kii horey u maqlayna xusuus bay u noqonaysaa aniga horey baan u maqlay laakiin xusuus bay ii noqonaysaa si aan ilaahay uga cabsado 3da been uu sheegtay tan koobaad waxa weeye markii uu doonayay asnaamta inuu burburiyo ay qoomkiisu ay ilaahay kayrkiisa caabuday jireen si uu u burburiyo meesha inuu ku haruu rabaa reerkii waa hoydeen isagu inuu joogu rabaa wuxuu yidhi innii saqiim waa jirranahay iga taga anigu waa buka ma socon karee hal beenuu taas meel ku qortay markuu wada burburiyey asnaamtii khayrullaahi la caabudayey ee digada ka wada dhigay ee kii ugu weynaa u soo reebay ee faaskii uu ku burburiyey u suray maalintii berri markii la soo noqday la arkay asnaamtii oo wada burbursan yaa la yidhi yaa man facala haada wiil baa la sheegay ibraahim la yidhaaho maalmahan soo qabta waa la keenay war ibraahiimow maadaa burburiyey maya kan aad arkaysaanee ugu weyn ee weliba raadkii uu wax ku burburiyeyna oo faaskii uu u saaran yahay qoorta u saaran yahay kaasaa burburiyey bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum kuwaan burburay weyddiiya in kaanuu yantiquun hadday hadlayaan isaguna wuxuu uga jeeday inuu xoogay ma garanaysaa quluubtooda
qaadayo inuu hurdada ka kaciyo wayna ka kaceen wax yar oo isweydiin waxay dhaheen وكون محيل هذه الأيام فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ورما أسنام مركو هرنا وحيس كعلين ويسي هذا مركي لبربري هذا ويسي بعد غير الله عابد سام بيسير دهن لكن الشيطان كبا أوصل نقضيه ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وبدأت يكون إننا هذا إننا محمد حول إجا شاك يا بربري تاسنا واتين لبعض مكت وبنتين لبعض ما البكو قرتي بين سدحاتنا وحو شيغي بري وسوق لي ماشي ليلى مصر وحانا هيستينين فرعون كي موسى maaha فرعون hore فرعون kaasi marka hadii uu arko gabadh dhaban laho quruxsan oo safar ku timid uu qaadanaya laakiin ninka la socda haduu ninkeeda yahay uu dilaya hawala halkeedii waxa uu yahay iska dhaafaya marka Ibraahim arintii uu ogaaday wuxuu yiri ninkan كل إلهي بكا علم دونا وحبكم يليو لكن هدوك ويديو وحترى وولالكي أنا وولا شيء بانورنا أنت أختي في الله لكن مال بكو قرتين بنتها أردها سنة سار عليه السلام فرعون واقعتي قل كي مركو لتجي ودمعين وفرح مايو سيد حديث صحيح البخاري كويمين ويسيستي توضأت وصلت ويتكتي وإلهي ببرده وحيتري اللهم إله يوم هذا دكتور إن أديك كرمي خليل كأنا أن رمي إنه رسولك إلهي هي نجني من هذا الكافر فرجي أنا أن حران كدوري هذا كور صدح راس شيء بشكت إن أديك كرمي نبي خليل الرحمن الرمي فرجي أنا حران أن كدوري هيوصل الذين كافر كان دول بقوا يمد عالم بقوا نكي قال كأها ولا قبتي سيجيورن مركز الرفتي والعجين وحنا أركب عجين مركز الرفتي أو نفتي بكسي بحش أي إسلا يدي إلهي برد وحتى إلهي ونين كان هيقول لي حيل هداد دشوا على الأرض يدا دش إيش كده ولا إيش كسي داعي ماشي بكون قضي كرسي جيسي ماشي فردي ما غاني حاجة مركب فردي اللي كلا قاعد هذا أنا قروح ذا أتكيسن ويحوسير هذا أنا بالفيري حاجة دوسوا عرّي تي كدرن بقى لو دفتي ورفتي نفتي بكسي بحيسه إلهي واسكدا ولا سيداي هدنا markii saddexaad markii sida lagu sameeyay ay waliba ilaahay ay bariday baa loo daayay maahane wala dili lahaa ilaahay oo iska daayay la dhihin iyada dishay ayuu iga saara shaydaantan iga saara waliba hadiyana si oo haajar alayha salaam oo jaariyaha buu yiri tan raaciy ha qaadatay hana iga baxdo iyada oo haajar wadatay ibraahim utimid waxay tiri ya ibraahim alam ta'lam miyadan ogeyn أن الله إلهي أنجاني من الكافر كافر كإنه يقبض بهذه وأخدمني هذه هاجر ترى خادمة بو يقول لي أديك أنا كسية يا قاضي فهي هدية لك لأن أديك ربي جاي بري أنت الذي علمتني ربي مركا هاجر عليها السلام وحي حنبارتي أوركي إسماعيل عليه السلام إسماعيل ابن إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أبوه سواء أبو رسول الله جد رسول الله هو نبي الله إبراهيم صدح ذاس أولي بأن بين لقوت المامي كريم أيو يرى أنه صدح ذاس بينود بان لي هي إلهي هرتي سمتك كرو طلو ما أنت أني أديكم حان شاقن لهين إمي سبين بان شاقن لهين لا إله إلا الله وفي الأخير نبي محمد بالله يمد عليه السلام إسقى أيا أنا لها نبينا عليه الصلاة والسلام أرنتها إلهي وقري ومقام كمحمود إلهي وصار دونوي هذا يقول أن إلهي أبرنه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا كان أن نراوي وسجود يا بين يدي الله وحا إلهي أفر يا ذكر جيسا محمد سسيون هذا كور عندنا وفر كل جن ومغلي دونا الله بالله دونا يا محمد ارفع رأسك ماذا حاجة كرقات وسل تعطى واشفع تشفع واحد دونا دوني سنة ويديسو واحد رتنا وشفع هذا ولا أقبليا مركا كو أمدي سوك بالله يا أمتي إلهي أمتي إذا مركوري كدي من الضد كورم وشفع قاضي إن لو سميه الفصل
إلا كلا سارو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مقامك يشرفتها قادي ما جعشها إناد أكتيس كدوات يوم القيامة ذاتك أقول إناد نغطو صلي سبضي أقرب الناس إلي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أكثرهم علي صلاة مid walba midka kale inta uu ka salli nabi badan yahay nabiga ku salliyo hadii ilaahay ku waafajiyo oo kumaan kun goor 2000 3000 4000 5000 marra nabiga ku salliso maalintii soo ma liibanaysid waa liibanaysa xaajadaadana ilaahay waa ku gudaya idan yukfa hamuka wa yughfar laka dhanbuk dambigaagana waa lagu dhaafi hamigaagana waa laga dul qaadi ayu hammin kan jiran waa mahmuum ثم همي بالصلاة على رسول الله بلا وقاضي كان مديون كدين تلقوليه كان وحيالها كشيء كان إنسانه قال ذي المها كقاضنا وحصل وهمي هذا دون شيء إلهي كان رفعيه صلى النبي بدي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى همي قاق وكاكها فينيا ويرفع درجتك ويغفر ذنبك على يابا قبر بقى إلى سوى هذا الشيء تليفون حقيقة لسوا هذا الشيء مريكا ولا جايب فيديو كان إنه قالوا فلذلك ما قاعد مشي جيو سأينا فدنا بقونا قنيضا وحي قلت لي سؤال عجيب وحي تري شيخ بالإيسو دعي مال مها النبي ما أركنه نبي الرؤية دي يسيبها واي مركز حال أمي أركي جرتي وحي تري هبين كستوا أركي جري في كل ليلة نبي وأركي جري لكن مال مها ما أركن marka qurba ay haysatay soo ducay waxaan waa marka yani aniga ay wax weydiinaysay ma haysta nicmadaas meeshii wax iga weydiinaysay aniga baa inaan ka faa'iideysto wax weydiisan noqotay Soomaa waxaan bal maxaad sameeysaa oo nabiga habeen kasta aad ku aragtaa aan sameeyay waxay tiri salligiisaan badin jiray iska yar diiday laakiin waxa iga muuqatay inay ilaa 10 kun iyo ka badan ku sallisay nabiga kaleey salaatu wassalaam oo inta yar mashquulshay xoga ay ka gaabisay cadadkiyo dabadeedna ru'yadii halka ay ku weydii waliba ma xagee joogtaa wadan gaal bay joogtaa wadan gaalay joogtaa gaala wadan male yani ardullahi kullaha meesha gaaladu u badan tahay waa ani wadamada gaalada in leeyahay ma jecli laana ilaahay baa iska leh wadanka الأرض لله كلها ملك الصوت ربك كبرته والنبي عليه الصلاة والسلام على الأقل يلتنا يعني ويكون الجليس لأن الأرض كلها لله مركز صلى النبي إن بدن عليه الصلاة والسلام أيها لنقدون إياه ختام كلامي إخوتي الكرام إلهي سبحانه وتعالى هالنوافجيو إن ذكر جيسة يا حسوس تيسة ليلا ونهارا كم مشغول سنان وقت جيسة عدي والله ضافي لكن ساعد على شيء معها تعالوا نؤمن بربنا ساعة معها نؤمن بربنا ساعة وإن يسبد ساعات إن شاء الله أوقات دينا وإن وأقلنا وحن إذن دردار ميا نفتيذا أو دردار ميا إلهي هاي وافجي دي كان الله إذن وافجيه وحقوين إلهي نسيه وقرآنك قرآنك إلهينا وردي كيالنا وردي إنا ديالته وهذا كتقل ugu yaraan ninka iska caamada muslimiina in xaafidka ahayn juz baa laga rabaa maalin kasta akhri juz bishii hal mar dhamee waa kalaamullah wax ka weyn ma jiro haddaad fariid noqoto oo laba juz akhrido oo bishii laba goor dhameysana waa fiican tahay ama dadka khawaasta waxaan u jeedaa quraanka iyagu xifdiyay amba soo maray dugsi ama kada iyaga waa inay ka badiyaan 3 juz waa inayna ka yaraanin haddii usbuucii maalin aad quraanka dhamayn kartana waa nicmo weyn weyn taa haddii ilaahay ku waafajiyo waxaa kuu dhiman adkaarta kale inaad iyadana badsato oo salliga nabiga ka mid yahay oo istighfaartu ay ka mid tahay al-inaaba ila Allah salaatu al-layl salaatu ad-duha umurahaasoo dhan in aad ka dhigato nu'min birabbina saaca in guryaheena aanu ka samaysano xalaqa tacliim aanu ilaahay isku xusuusinayno oo dhikrigiisa aanu ku xusayno maxaa yeelay wax kaste gurigii waqti way leeyihiin illa dhikrallah dhikriga ilaahayna in waqti loo sameeyo waxaan shaki ku jirin dhibaatooyinka guryaha ishaysashada iyo mashaakilka ninka iyo naagta ku dhaca ciyaalka maaragtay ilmahooda hooyadood iyo aabahood iyo
caaq ku noqda waxa asaas u ah xalaqatu tacliim gurigii ma leh guriga waa in malaa'ig la soo geliya malaa'igtuna xalaqatu tacliimkay ku soo gelaysaa xalaqatu tacliim marka lagu leeyahay ma aha inaad telefisyoon wax ka daawanayso sheekh baa ka hadlay halkan ma aha adigu samee adiga reerkoo dhan isu yimaadeen ha fariisteen qur'aanna yar ha la akhristo axaadiista nebigana ha la akhristo intaas waa sooriyadii malaa'igta weeye guriga malaa'igtu soo gasho muddo markay sidaa ku socoto wax isweddel weyn baa ku dhacaya tawfiiqda allahna waafajiya in sha allahu tacaala allah yakrimna waiyakum jazakum allahu khayran جزاك الله خير وأحسن الله إليك شيخنا الشيخ عبد الرشيد الشيخ السوفي إلهي ميزانك حسناتك أصاره أننا kuwaantu wax ku qaata ilaahay subxaanahu wa tacaala allah naga dhigo dad badan oo sheekh cabdirashiid ka codsaday inuu akhriyo qur'aan iyo dad badan oo codsaday inuu u duceeyo way jiraan insha allah nadwana way jirtaa muxaadaro kalena uu leeyahay taas ayaan dib ugu dhigaynaa maadaama waqtiga cariiri uu nagu yahay laba muxaadaro kalena sugayso warqadan oo hadda la ii dhiibay oo lagu yidhi waa private sheekh cabdirashiid u dhiib iyadoo sideedana sheekh cabdirashiid waa u dhiibay baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayr ma garanayo sheekh خاص ويلوير waxaan rabaa walaalaha inaan ogeysiiyo cajaladihii sheekh ismaaciil meecaad waa diyaar kuushkana wuxuu bixi doonaa insha allah qofkii rabo wuxuu iska diiwaan gelinayaa 12 saacadood uu socon doonaa kuushkaasi wuxuuna iska diiwaan gelinayaa taleefanka 97392615 korna waa ku dhegan yahay kala soco waxaan rabaa inaan dadweynaha u sheego gaar ahaan dadka walaalaha ay mu'tamarka yimid in tigidkaaga aad soo goosatay gudaha soo geshid qof kale halkan fadhiya intaa u dhiibtay qof dibadda jira si uu ugu soo galo kaarkaagina dee cidna khiyaani maysid adiga iskhiyaanin dadka tigidka goynaya boqol koron adina wax kaa dhibi mayso qofka kale ku soo galayna wax ka dhibi mayso xataa ma haysta dheh laakiin inaad khiyaanadaas samaysaan adna kuma fiicno aakhiradaada qofka kalena aakhiradiisa uma fiicno mar kale waa ku celinayaa siiba arrinkaas waxaa laga soo sheegay dumarka marka in mar kasta la yiraahdo arrin baa dhacday hal sheeg waa dhibaato mar kale haddana dadka waxaan ka codsanaynaa si isluub iyo edeb iyo naxariis ku jirto walaalaha shaqaalaha ah inay la shaqeeyaan baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayra muxaadaradii sheekh maxamed cali mawliid otomaatig u bilaabanaysaa sheekha uu joogaa walaalkay cabdibaasid iyo sheekh maxamed cali mawliid falyatafadal mashkuuran allah baaraka allah fiik sheekh fadal اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسأل الله أن يرزقنا وإياكم كل واحد منا سؤله اللهم إنك تعلم أن كل واحد منا وكل واحدة منا حاجة لا يقضيها إلا أنت فاقض حوائجهم يا رب العالمين واشف مرضاهم يا رب العالمين اللهم ارزق الأولاد الصالحين لمن طلبت منا الدعاء لذلك يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على النبي سيدنا محمد جزاكم الله خير تفضلوا شيخ أتدبرتم كلام ربكم إذا لا تحزن لا تيأس لا تأسف على ما فاتك من الدنيا كن راضيا مستسلما لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن غالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها من يشتري الدار